maktabka waqooyiga haysta Mr. Caynaashe ninka la yiraahdo waa ciidagala weeyaan horta kan aqoonyahana wuxuu ahaa macallin Hargeysa ka howlgala oo dadka wax bara horta hogaamiyihii koowaad ee kooxdan argagixiso ee al-shabaab ninkaasi waa Ismaaciil Caraare waa uhdi warag waa halkay u dhimanaysaa argagixisadu waa Axmed Godane Ibrahim Jaamac Miicaad wuxuu ahaa nin habar awra Soomaaliya taariikhda markii ugu horeysay nin xildhibaan ah oo airportka isku qarxiyay ma maqasheen waxaar wuxuu ahaa nin isaaqa waxa la oran jiray Saalax Badbaado waa nin kana u jeedid waa nin habariyoonis oo abwaanada hadii la yiraahdo abwaan nageey cali khaliif abwaan cheysto abwaan gamaadiid dhammaan waa isaaq weey taarsiya nacabka ha xanuusadaan sharta ku badi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal halkan waad iga daawanaysid waa Cabaas Madani habeen wanaagsan soo dhawaada meel dheer muuqaalkan gaarsiiya waxaan ka hadlayaa arin xasaasi ah arintaasi oo ah nin kamid ah kooxaha argagixiso sida uu sheegay oo gacanta lagu dhigay oo isaaq ah oo buuhoo la sheegtay inuu ka yimid Puntland ayaa soo bandhigtay qoliyo iidoora iyo kuwa ay wada shaqeeyaanba oo meelaha marmarinaya isku dayeenay dadka reer SC Khaatumo iyo deegaanada SC Khaatumo ambaar aan waligood ku tirmayn inay isku dayaan inay ku tiraan taasina waa dhalanteed iyo ruwaayad weey marka qofka reer SC Khaatumo waxaan rabaa muuqaalkan inuu isgaarsiiyo iyo ummadda Soomaaliyeed ka hadlamayo kuwa kale la shaqeysta ka hadlamayo ka wada shaqeynayaan ee arinta iidoorka la shaqeynayaan ka hadlamayo laakiin waxaan rabaa inaan ummadda u biyaamiyo isaaq waxay yihiin dhul bahantay isaaq waxay kale yihiin cidda argagixisada la shaqeysa magacyada hogaamiyaashii argagixisada soo maray abwaanadoodii taariikh ban caawida ka daba geenaya insha Allah taala waxaan rabaa markaa inay si shargareysaan oo meel dheer ka tuurtaan dhagaha fura waliba waxay ka codsanayaa inay muuqaalka si shargareysaan si meel dheer u gaaro waaya waa maashatii marka la soo dhawaada horta ninkan ku horma ninkan horta waa nin isaaqa weey wuxuu ka yimid qorlugud waa nin habar jecel ah oo soolomada ah waxa jirta isaaq waxay gobolka Cayn u yaqaanaan oo isticmaalaan gobolka Buuhood loo yaqaanaan iidoorku jabada argagixisada sanam marka qof kasto habar jecel oo tuulada qorlugud degan Buuhood u sheegtaa sababta weeye qorlugud cidna ma taqaan qorlugud cid garanaysa ma jirto laakiin Buuhood waa magaalo caana waa gobol caana waa degmo caana weey gubiid kuma aha iidoor sheeganay Buuhood inay ka yimaadeen Buuhood la kama yimaanay magaalo meel tuula ay leeyahay qorlugud degan tuuladaas hadaba ninkaas marka Buuhood la soo qaaday nin iidoor argagixisa oo sheegtay Buuhood jas waxa la mooday reer SC Khaatumo ama gaar ahaan dhul baahanta laakiin dadka waxa rabaa dadka inaan taas u biyaami ma ayaha ninkan baaris baan sameeyay dheeraada ninkan waa nin iidoora tuulada qorlugud buu ka yimid kooxaha nabadiidka argagixisada asram ayuu hadii la kuurayahay ka tirsanaa sida uu sheegay waxa laga tashkiiliyay magaalada Hargeysa halkaas oo macallinka ahaa ila dhageysta muuqaalkan uu taas ku sheegayo iyo xeeraaliyaha maxkamadda Puntland ama ninka markaasi meesha fadhiyay xeeraaliyaha ka ahaa oo cadeynaya ninkan meesha ka yimiyo detailskiisa hoos ila dhageysta ay joogan jilib waa Ameerika waxa weeyaan waana maktabka waqooyiga haysta Mr. Caynaashe ninka la yiraahdo waa ciidagala weeyaan boqolada aniga buu Hargeysa iga tashkiilisay ragii waxa weeyaan soo diray weeyaan horta kan aqoonyahana wuxuu ahaa macallin Hargeysa ka howlgala oo dadka wax bara waxa uu yimid niman reer waqooyiga waxay ku tashkiiliyeen inuu ka mid noqdo ururka al-shabaab xogaa lacag oo 5,000 loo dhiibay deyn baa lagu leeyahay buu yiri waa dhageysateen ninka saddex qodob buu cadeeyay kow magaalada Hargeysa inay ka furan tahay maktabka ugu weyn ee kooxda argagixiso ee al-shabaab inay ka furan tahay ayuu cadeeyay oo sheegay in magaalada Hargeysa lagu tashkiiliyay halkaan uu macallinka sida uu xeeraariyaha maxkamadda uu sheegay waxa uu kala sheegay ninka waana ciidan galaab uu yiri ninka maktabka ugu weyn Hargeysa maamula jilib hadda jooga magaciisa waxa lagu naanaysaa loo yaqaanaa Caynaashe waana ciidan galaab weey maktabka ugu weyn hadda Hargeysa ayuu ka shaqeeyaa maxaafadda musallaha ma jijiga yarba ma isha boorama ma barka ma siinayba ma garan maktabkaas waxa uu ku yaala kul Hargeysa uu sheegay location-kaas taas waa ta ninkan marka waa nin isaaqa oo habar jecel weey dadka marka waxa rabaa inaan u bayaamiyo qaar badan oo Buuhooda soo hadal qaadayay ma arkay oo dhul bahanta ka dhigay wali taariikhda lama sheegin hal nin oo figura ah
ama dhalinyaro ha ahaato ama iliidka dhulbahanta ha ahaato hogaamiyaal kama noqon kuwan ay biri argagixiso laakiin argagixiso haddaad maqashid al-shabaab daacish you name it argagixisada oo dhan cidda aabbaha u ah ee hooyada u ah waa isaaq beesha la yiraahdo ilmaadareelo arinta dambi layga qori maayo oo bil barakaysan oo rabadaana iyadoo ay tusoo taabsiina waa idin maqashinaya kow horta hogaamiyihii koowaad ee kooxdan argagixiso ee al-shabaab wuxuu ahaa ninkii lagu magacaabi jiray Ismaaciil Caraare wuxuu ahaa hogaamiyihii asaasihii al-shabaab waa nin la yaqaan waa nin habaryooniisa oo isaaqa waxay isku reer yihiin hogaamiyaha jabhadda khawaarijta argagixisada SNM hadda Cabdiraxmaan Ciro ninkaasi waa Ismaaciil Caraare waa uhdi warag waa halkay u dhimanaysaa argagixisadu waa ninkaas weeye ninka labaad waxa weeye waa Axmed Godane details badan u galmay isagoo wad garanaysaa waa nin isaaqa waa hogaamiyihii isagana kamid ahaa hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa oo al-shabaab waa nin araba weeye waxa kale oo ku jira ninka lagu magacaabo Ibrahim Jaamac Miicaad wuxuu amiir ku xigeenkii kooxda al-shabaab wuxuu ahaa nin habar awra markii dambe wuxuu ku baxay gacanta Axmed Godane oo way kala shakiyeen isaga iyo nin lagu magacaabo Macalin Burhaan oo kooxaha argagixisada magaca xarakiga ay ugu yeeri jireen Macalin Burhaan magaciisa saxdaana waxa la yiraahdaa Cabdixamiid Xaashi Orhaye labadaba wuxuu ku dilay dhulka koonfurta ku dilay Axmed Godane ayaa dilay nimankaana way iga haysaan waa niman isaaqa oo waxa weeye hadii la kunika Afgaani ninka lagu magacaabo Sheekh Jaamac Nuur isaguna waxa weeye waa nin habar jeclaa weeye waxa jira nin la yiraahdo Suldaan Maxamuud Jaamac oo loo yaqaano MMG baa la yiraahdaa magaca xarakiga waxa la yiraahdaa Sheekh Suldaan baa la yiraahdaa waa nin habar jeclaa waxa kale oo ku jira ninka la yiraahdo Cabdullaahi Gaab isaguna waa habar jeclo waa nin la yaqaan oo koonfurta si weyn looga yaqaano waxa kale oo ku jira ninka la yiraahdo Maxamuud Kaahin ninkaasna waa nin habar awala ninkaasna waa nin la yaqaan way Sheekh Mubaarak isaguna waa habar jeclo Sheekh Aadan Sunni waa ninka hadda bedelay booskii Godane waa nin araba waxa weeye dhawaan Hargeysa ka tagay waa nin la garanayo dhammaan inta sawirradooda idila wadaagay iyo intaana sawirradooda idila wadaaginba yaan sawirradooda aan lahayn dhammaan waa beesha isaaqba ka soo jeeda waana hogaamiyaashii iyo iliidkii hogaaminayay markaasi argagixisada al-shabaab Soomaaliya taariikhda markii ugu horeysay nin xildhibaan ah oo airportka isku qarxay ma maqasheen waxaar wuxuu ahaa nin isaaqa waxa la oran jiray Saalax Badbaado waa ninkan aad u jeedid waa nin habaryooniso weeye warkum idii bax waaya labada nin ee lagu magacaabo Maxamed Caraale iyo Maxamed Suleymaan Barre waxay ahaayeen labadii nin ee ugu horeeyay ee argagixisada Soomaaliya ee lagu xiro waa Tanaabo ninka lagu magacaabo Sheekh Jaamac Nuur iyo Maxamed Maxamuud Jaamac suldaanka loo yaqaan ama MMG waxay ahaayeen labada nin ee uu xiray ninkii la oran jiray Daahir Riyaale markii dambana Siilaaye markuu xukumayay Siilaaye si daay koonfurta ayuu ku sii daayay taana waad maqasheen waa xaqiiq weyn hogaamiyaashii ugu horeeyay iyo kuwa isbedelay iyo kuwa hadda xukunka jooga ee al-shabaab dhammaan waxa weeye waa isaaq weeye haddaba yaa weeye dhalinyarada jilib iska xadirisay iliidkoodii aqooyahankoodii waxgaradkoodii abwaanadoodii hogaamiyaashoodii waa isaaq weeye abwaanada hadii la yiraahdo abwaan Nageeye Cali Khaliif abwaan Jeysto abwaan Gamaadiid dhammaan waa isaaq weeye taana daydiku Soomaaliya marxaati ka jilib bay wada iska wada xaadiriyeen hogaamiyaashan idin soo tiriyeen dhammaan isaaq bay ahaayeen kuwii hore ee dhintay iyo kuwa hadda noolba intaasoo figar aan idin tiriyay hal nin dhulbahantaa kuma jiro taariikhdan weligeed ma dhicin dhulbahantu gobonimo dirirkayo gaara la dirirkayo gumaysi la dirirkayo waxyaabahaasi waa galaano waa ku dagaalamaano waa muwaadiniin waa wadaniin weyn laakiin qof suicide oo isqarxinaya oo argagixisa weligeed dhulbahanta qayb kama noqon taasna Soomaali ba marxaati ka argagixisana isaaq ahayna Soomaali ma laha calmiskaad kuwa buuraha galiyay ee berberaka daabul jiray ee Hargeysa ka daabul jiray dhammaan isaaq bay ahaayeen askartooda waxa weeye amniyaadkooda hogaamiyaashooda saraakiishooda madaxdooda hal nin dhulbahanta figar ah kuma jiro xitaa askartooda kuma jiro
هذا وقت لكن إساق إتواليه maxaa jilib ku ururiyay maxay hargeysanada jilibka raadinay maxay hargeysa ugu raadin waayeen waa mashruuc way horana way ku sheegay aqoonsi ay ku raadinayaan taa ka kale Soomaaliya oo marxaati ah anu ma ahna anagu sayna ma laakiin Soomaaliya baa ay marxaati furaysa inta tiriibin xaq tahay anaga dhulkayga isu si qaatuma nabadgeliyo way dawlad baa hadda ka jirta kuntigani ka baa lagu ilaalinayaa rag arbisan baa jooga taasina argagaxisay iyo inay ka hawlgashay inay ka soo dhaxbaxdo habeenka xalaytay argagaxisay deegaankan mar bay joogtay markiina waxa weeyay markii laas aano ay